love you my baby, I love you my baby, love you my baby. fadlan haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah fiidiyogan ku diran yahay fadlan ha fiirso. sheekadan waxay ku dhacday gabar magaceeda la yiraahdo dt waxay lahayd saaxiibad ee aad u jeceshahay ee markastana ay la sheekaysato, laakiin saaxiibtaas ay lahayd waxay ka weyneyd 7 sano. maalin kasta oo dt u imaado saaxiibteed ka weyn waxay u sheegi jirtay sheeko cusub. dt waxay ka codsatay saaxiibteed inay u sheekayso sheeko aad u cabsi badan. kadib dt saaxiibteed ayaa sheekadii bilowday, waxaana ku bilowday waxaa degnaa xaafadeena gabar aad u qurux badan oo magaceeda la dhihi jiray Veronica. caruurta magaalada degan oo dhan way jeclaayeen, waxaana ahayd gabar aad u qurux badan. muddo dhow kadib ayaa la guursaday. Veronica ninkeeda waxay ka qari jirtay sir aad u weyn. sirtaasna waxay ahayd Veronica waxay dhashay gabadhaasina ninkeeda ma dhalin, qof kale ayaa dhalay. markastana way ka qari jirtay gabadhaas yar. Veronica gabadheedana waxay u dhiibtay gabar ay saaxiibo yihiin, markastana gurigeeda ayay u imaan jirtay, wayna ku soo salaami jirtay. sidoo kalena habeen kasta markii oo ninkeeda jifto way tegi jirtay gabadheeda ayayna u tegi jirtay, muddana ama waqti way la soo qaadan jirtay. maalmaha ka mid ah Veronica ninkeeda ayaa soo kacay, wuxuuna raadiyey xaaskiisa Veronica. meel kastana uu ka raadiyey wuuna waayey, aad ayuuna u naxay. xoogaa markuu wareegayay kadib ayuu wuxuu ku arkay guri ay joogaan xaaskiisa Veronica iyo gabadh yar. Veronicana aad ayay iskula sheekaysanayeen gabadha yar. Veronica ninkeeda wuu shakiyey, kadibna geed ayuu ku dhuntay, hadalkoodoo dhamna wuu dhegeysanayay. kadib wuxuu ogaaday Veronica ninkeeda in xaaskiisa ay qayaantay, gabadhaanina iyada inay dhashay. Veronica ninkeeda aad iyo aad ayuu u xanaaqay, wuuna isxakameyn waayey. maalinkii xigta markii la gaaray kaniinii hurdada ayuu Veronica ninkeeda ugu daray shaaha. kadibna Veronica shaahi ayay cabtay, sidii ayayna hurdo ula dhacday. kadib Veronica ninkeeda uu soo baxay, wuxuuna u imaaday gabadhii yareed. si qasab ah ayuuna ku soo waday, asigoo dhulka ku soo jiidayay. gabadhii yareed aad ayay u oynaysay, wayna qaylinaysay, laakiin cidna maysa maqal. Veronica ninkeedana wuxuu dhahayay khiyaanada hooyada ay igu samaysay ayaan adiga kaa goynayaa. kadib Veronica ninkeeda wuxuu qoday god, gabadhii iyadoo nool ayuuna ku riday, kadibna meeshii ayuu ku duugay. kadib Veronica ayaa hurdadii kasoo toostay, isla markiina waxay raadinteeda gashay gabadheedii yareed. meel kastana way ka raadisay, laakiin way waysay. muddo kadib ayaa waxay ogaatay Veronica in ninkeeda uu dilay gabadha. kadib Veronica arrinkaas aad iyo aad ayay u naxday, shoog ayayna ka qaaday. kadib booliiskii ayaa ninkeeda maxkamadda keenay, waxaana lagu xukumay 30 sano oo xarig ah. Veronicana markasta gabadheeda ayay soo xasuusi jirtay, aad iyo aadna way ooyi jirtay. muddo kadib Veronica waa la waayey, laakiin Veronica ninkeeda ilaa hadda xabsi ayuu ku jiraa. haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar, haddii aad hore noola joogtana videoga like garee. 내가 포기하고 싶을 때도 나는 왜 기억나지